hormuud salaam foundation oo fulinaysa barnaamijka taakuleenta dadka danta yar ee bisha ramadaan ayaa maanta deeq isugu jirta bur bariis sonkor saliid iyo baasto gaarsiisay dadka la heebsooco oo ay gacanta ku hayso hay-adda Sohayda oo uu madaxda ka yahay xildhibaan Yuusuf Xeele waxaana deeqdan ka faa'iideystay 100 qoys goobta dadkan loogu qaybinayay raashinka ayaa waxaa goobjoog ka ah madaxda hormuud salaam foundation iyo xildhibaan Yuusuf Xeele oo wakiil ka ah dadkaas gudoomiye ku-xigeenka hormuud salaam foundation Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi Macalin Kobac ayaa ugu horeyn sheegay waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqdan ay maanta gaarsiiyeen dadkan la heebsooco isagoo ku baaqay in lala shaqeeyo hay-adda Sohayda oo gacanta ku haysa dadkan danta yar muddo ka badan 14 sano ayaan u sameynaa taageero dhinaca waxbarashada iyo taakuleynta danta yar maanta waxaan nimid inaan taakuleyno dadka danta yar ay hayso ay ka warqabto hay-addan runtiina waa markii 14aad marka waxaan rajaynaynaa marka in maanta halkan waxaan ku qaybinaynaa bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid iyo baasto taas aan u talagalnay qoysaska danta yar inay ka faa'iideystaan ay ku kaalmaystaan ramadaanka oo runtii oo ah maaragtay maalmo barakaysan waxaan rajaynayaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku anfaco waxaan bulshada u baaqayaa in aad loola shaqeeyo hay-addan Sohayda oo runtii hay-adda kaliya oo runtii u dadaasha dadka maaragtay danta yar dhankiisa xildhibaan Yuusuf Xeele ahna aasaasaha hay-adda Sohayda ayaa ka mahadceliyay deeqdan ay hormuud gaarsiisay hay-adda iyo dadka uu gacanta ku hayo ee la heebsooco wuxuuna sheegay in hormuud hay-addiisa ay ka taageerto dhan kasta marka waxaan leenahay hormuud salaam foundation way mahadsan yihiin dadkan waa dad masaakiin oo marti ah oo sabool ah waxaa wax siiyo hormuud salaam foundation iyo ummadda Soomaaliyeed dad maamul goboleed iyo degmo iyo meel ku tiirsan ma ahan waa dad oo basiibkaas dhex degan oo aad u liito oo waxba haysan oo dad maaragtay aan maanta dabka shida karin ah oo ganacsato qabin xoolo haysan marka hormuud salaam foundation waxaan leenahay Ilaahay xoolooda ha u barakeeyo Ilaahayna ha ku xifdiyo ilaahayna maaragtay miisaanka aakhir ha u saaro waxaan cadeynayaa inay garab taagan yihiin bisha ramadaan iyo caruurta waxbarashadooda waxaan markaa ummadda Soomaaliyeed walba ay joogto u sheegaynaa hormuud salaam foundation inay tahay garab qabashada iyo garab hayaha dadka taagta daran amba laga tirada badan yahay ama Soomaalida heeb socdo ama dadka minority-ga dhaxan marka aniga ayaa ku matalo baarlamaanka Soomaaliya waa mahadsan yihiin hormuud salaam foundation 100 qoys lacag loo 100 qoys oo danyar waa 100 qoys oo la fursina waa sanadka 14aad waa qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan ayaa u mahadnaqay hormuud salaam foundation iyo garab istaaga ay u muujisay ana mahadsan yihiin khayr Allah siiyo cimri dheer iyo caafimaad cadawgooda Allah qabto intii noo soo dadaashay oo noo soo gurmatay Ilaahay khayr siiyo ajri xasan Allah siiyo hormuud foundation ayaa waxayna siisay raashin afur oo iskugu jira bur bariis sokor saliid iyo baasto Ilaahay subxaana qaadirahay muraadkoodana Allah sahlo iyo muraad muslimiinba hormuudna waa mahadsan yahay waxa noo keenay wuxuu jecel Allah siiyo anugayna madaxiisa ku halna Yuusuf kor Allah ka yeelo waxa jeceshiin Allah siiyo madaxiina Allah raajiyo walaalka dhamaasto noo soo gurmaday kor Allah ka yeelo kor Cabdisalaan Jolo Shaakir Dalsan TV Muqdisho